kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan saacadaha nagu soo foodla waxaa caasimadda qaranka Soomaaliya ee Muqdisho ku soo wajahan sida la sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia kaas oo laba ujeedo oo kaliya u imaanaya sida aynu ku hayno warar hoos oo aynu helayno kuwaas oo aynu si wacan ugu wanqalo heshiiskii Ankara ka dhacay bishii December ee soo dhaaftay iyo waliba ciidamadiisa qaar ka mid ah oo ka mid noqonaya hawlgalka cusub labada arrin ayuu imaanaya su'aalaha isweydiinta la waxa ay tahay dawladda Soomaaliya maxaa ayada hortamin u leh oo markaas ay doonaysaa in ay markaas wada xaajoodkaas ay kula xaajooto oo miiska u saaran dadka qaar ayaa isweydiinaya suurtagal ma tahay inuu Abiy Ahmed halkaa ka yiraahdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku qanciyo inuu yiraahdo si bareero cad waa ka noqday heshiiskii MOU-ga ee uu la galay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi tacdiyadii ciidamada Ethiopia ay geysteen xilligii maxaakimta ay Soomaaliya ka talinayeen ee 6 bilood oo caalamka oo dhan Soomaaliya uu isha gaarka ku hayay oo lahaa haatan ayaynu boogihii iyo dhibaatadiina soo martay ka bogsanayna ciidamadiisu marka ay soo galeen barakicintii iyo waliba barakicin 1 milyan oo qof in la barakiciya iyo warar ku sheegayaan hay'adaha xuquuqda waxay sheegeen dad fara badan oo birmageeda in la dilay qaar ka mid ah ayaanu halkan ku wareysanay dadkii goobjooga ahaa ciidamadu markay soo galayeen ma ka garnaqi doona su'aalahaas iyo kuwa kale oo fara badan ayaa la isweydiinayaa socdaalkiisuna waxa uu imaanayaa xilli madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu in badan ku celceliyay cadawga koobaad ee Soomaaliya maanta ay leedahay inay tahay Ethiopia haatana waxa muuqata in la isku dhex milmay maxaa loogaga bedeshay Ethiopia ayaa la isweydiinayaa ummadda Soomaaliyeed dan u ah Colonel Macow ayaa barnaamijkan igala qayb qaadanaya oo kamid ah saraakiishii ugu sarsareysay ee sirdoonka Soomaaliya ka soo shaqeysay isla mar ahaantaasna fashili jiray shirqooladii Ethiopia ay markaa qaranka Soomaaliya ay u maleegaysay muddadii dagaalada Soomaaliya iyo Ethiopia ee u dhaxeeyay barisamaadkii balse intaa ka hor waxaan rabaa intaan Colonel Macow soo dhaweynin inaan idin xasuusiyo dadkiina xasuusta heestan qaaliga ah daawadayaal waxay ka mid ahayd heesihii wadaniga ahaa ee markaa danta ummadda Soomaaliyeed iyo muqaddasaadkeeda lagu waardiinayay Colonel Macow waa ku soo dhaweynayaa marka koowaadna waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo hawsha qaranka Soomaaliya u soo qabatay socdaalka maxaa kaaga baxay il gaar ayaad ku haysay ra'iisul wasaaraha Ethiopia عبد حفيد وكو سلامة يا دمان dhageystayaashaada iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo geesiyaasha oo awowayaashooda iyagaba dhammaantood ee dalkooda ay difaaci jireen waa run Abiy Ahmed imaashaha uu imaanayo waxa waay tusaale haddii aan soo qaato 1974kii shirka African Unionka markii lagu qabtay magaalada Muqdisho Hayle Salaase markuu dekada ka soo degay ayuu waxa waaye badda neecawdeedu inuu sidaa u fiiriyay ayuu wuxuu yiri aad ay u qurux badan tahay laakiin se wuxuu yiri Maxamed Siyaad Barre wuxuu badda waxa la darisa halane geesigii muxuu ahay marka
أبي أحمد هدي أو أقول هذا مدحوين حسن كورنيل رعله بدأ يا لدريسة بدأ واحد لدريسة حالنا إن جيسي إن دفاعي إيسن علن كصومالية إيسن قعدت إيسن كل جن halka ay qaataan oo dagaalka ka soo bilaabato goojaale dabagoryaaleeyeen guuxa geesigaas marka xalana waxa waa geesiga calanka difaacay oo maaragtay ku shahiiday muxuu ahaa dagaalkii Togoojaale inta markii aan ka gudbo waxa waaye Hayle Salaase inta markii la yiri waxa uu joogay wadanka intuu qudbeynay daqiiqada yar ayuu joogay isla markii ayuu ka cararay oo hamiga Hayle Salaase wuxuu ahaa ku riyoon jiray waxaan iska xiirayaa markii aan balcad ciidankayga oo tago dhulkaas aan qabsado 1954 gumeystii Talyaaniga ayuu wuxuu kula dooday reserve area markuu Ingiriiska ku wareejiyay ilaa balcad oo lagu soo wareejiyay muxuu ahaa Ethiopia marka waxa loo qabtay guddi ayaa loo qabtay United Nations u qabteen dacwadaas oo gudbiyay Hayle Salaase guddigana waxay ahaayeen laba dawladood oo Norway iyo Colombia waa taariikh qoran laakiin waxa ayaan daraa dadka maanta dalka muxuu ahaa hogaaminayo hogaamiyaashu waa leadership-ka noo ah inaysan taariikhda Soomaaliya aysan akhrin danna aysan ka lahayn laakiinse maanta wadanka ay u horseedeen muxuu ahaa wajigabaha ay ku tahay dadka Soomaaliyeed ina Abiy Ahmed oo hamigiisa oo yahay inuu dhulkeena qaato oo aan ka noqonin ama ka bixinin muxuu ahaa cudurdaar MOU-ga oo la galay muxuu ahaa Muuse Biixi ama Somaliland oo la galay asagoo aan ka noqon in magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay كورنيل طبعا إنه رئيس وزراء إثيوبيا ومقدشي ماذا واحد بعتها مرحلة ملاحظة وإسبوع ذا والضمادة جاركا والشقيان والضمان حتى الشيء صار حين بقى إسبوع ذا لكن وجدوا إيمانا يو ما حد كلا سعوتا أنت الهرولي يكون دارك السكو arrintan waxay ahayd arrin kidisa oo maartay madaxtooyada uu maalinka ay ku dhawaaqad in Abiy Ahmed uu imaanayo magaalada Muqdisho 25,000 oo qofood ay ku dileen ciidamada Ethiopia dhaawacoodii ilaa hadeertan yaal oo curyaan waxa waa Abiy Ahmed hadii uu yimaado Xasan Sheikh waa inuu yiraahdo waa inaad maartay cudurdaar iyo raali gelin aasiisa dadka Soomaaliyeed xasuuqa ciidamadaada ay ka geysteen magaalada Muqdisho mid kale oo xigtana waxa waaye geesiyaashii xoogga dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed wadankooda u shahiiday ama xamarha ku shahiidaan ama goobaha dagaalka ee Abyssinianka lagu difaacay ku shahiidaan taalada daljirka daahsoon waa inuu ubax u dhigaa Abiy Ahmed sida uu maartay ay oo ubaxa u dhigay maxay anaasirtii oo maxay dalkeena duulaanka ku ahaa oo maxay ku dhinteen maxamed ku baqtiyay waa in barita waxaan ka rabnaa Xasan Sheikh laba arrimood ayuu shacabka Soomaaliyeed ugu fadhiyaa kow waxa waa inuu Abiy Ahmed raali gelin oo ka bixiyo ka tacsiyeeyo xasuuqa ciidamada Ethiopia ay ka geysteen maxay magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda 1 milyan oo qofood ayaa ka qaxay 25,000 waa la dilay suuqa xoolaha waxay ka sameysteen meel ay dadka ku daldalaan marka waxa way taasi meel waxa looga fadhiyaa Xasan Sheikh iyo Abiy Ahmed inuu ka tacsiyeeyo u tacsiyeeyo shacabka Soomaaliyeed isla markaasna ubax oo dhiga maxay daljirka daahsan marka dadka Soomaaliyeed ma qarsoomin dawladda Ethiopia ee dariska aan nahay waxay sheegtay gob ma aydin sovereign ma aydin idin la tashameyn idin warsameyn halkaas su'aal hadii aan soo gelino dawladda Ethiopia waxa ay sheegtay inuu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud gob ma tiidin xor ma tiidin madax banaanin Ethiopia meel ay arinta ogaga noqotay oo bareero cad oo madaxweynuhu ku eedeeyay Soomaali fara badan waxay leedahay ma jirto qaarna waxay leeyihiin waa jirtaa heshiiskii Ankara ayay ku hoos jirtaa idinkaan arkaynin bal aanu ku socono hadalkiisa waxa samaysateen oo adiga waa dawladeena aad leedihiin dawlad ma aha dhulkaana nus ana qaadanayo walaalaanahay darisana nuskan waxogaa yaa ma aragtay shalay daris maanaan noqon weligeena meeshaan kala deganayn Ethiopia ma ka tanaasushay arrinta madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ku eedeynaya uu leeyahay dhulkeena ayay nus qaadanaysaa in yaroo badda maahan 20 kilomitir maahan afkiisa wuxuu ka leeyahay
boqolkiiba konton ayay qaadanaysaa nus ayay qaadanaysaa etoobiya meelay arrintaa uga tanaasushay maadaama madaxweynuhu uu og yahay inay sidaas leeyihiin ilaa iyo haatan ma hayno waxa lagala xaajoonayaa waa maxay haddii aysan ka noqonin eedaynta madaxweynuhu uu soo jeedinayo